wuxuu la soo hadlay wasaaradda arrimaha gudaha sidoo ii sheegay wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku tiri beesha shaqaasheed waanu ka joojinay kaarka dhalashada aniga haddii dhugmentigayga waxba ii tiri waayo oo kaarkaygii shaqada dawladda hoose ku tusay waxba ii tiri waayo oo kaarkaygii dhalashada muwaadinimada wax ii tiri waayo way qof kale dadkii xilligaa deganaa xeerka iyo shuruucda Soomaaliland waxay u diiwaan gelinayaan inuu yahay muwaadin dhaba bal xeerarka iyo qaabka aad isku waafajin karayso deganaanshihiina wuxuu dhigayaa oo kaliya beesha reer oo qudub inay tahay muwaadiniin waana beelihii 60kii wixii ka horreeyay deganaa Soomaaliland laakiin taa macnaheedu maaha haddii cuqaash waajibkooda gudan waayeen oo waajibkooda dayaceen in qof muwaadini uu xuquuqdiisii lagu aaso dawadayaal hadda barbarkayga waxa fadhiya injineer Cabdirasaaq Axmed Maxamed oo kamid ah muwaadiniinta Soomaaliland Cabdirasaaq waxaan wax ka weydiin doonaa maanta waxa uu tagay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland si uu kaarkiisa dhalashada uu u soo bedesho bal maxay idin dhexmar adiga maamulka wasaaradda arrimaha marka hore waxaan ka cudurdaaranayaa horta waa markii koowaad aan saxaafad ka hadlo miyahan uu siyaasiya waxaan ahay nin shaqaale dawladeeda oo u shaqeeya dawladda hoose Hargeysa qaybta injineerinka wadooyinka marka miyihii qof inta badan siyaasadda ka hadla kamana hadlaya siyaasad laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeye wax aan maanta kala kulmay wasaaradda arrimaha gudaha aan waxaan qof muwaadina reer Soomaaliland Hargeysa ku dhashay ku barbaaray ku dhalay ku dhaqmay aabahay sidoo kale nin reer Soomaaliland Hargeysa duleedkeeda degan degmada Soonaag degan hooyaday aabahay sidoo kale carruurtaydu sidoo kale reerkayga ana weyn marka waxa dhacday wasaaradda arrimaha gudaha kaarka dhalashada waxaan qaatay 2014 Soomaaliland reerkayga ana weyn marka waxaan rabay magac sixid inaan ku sameeyo oo dhugmentigayga iyo kaarka sir waafajiyo marka wasaaradda markii aan tagay inamadii aan u dhiibay kaarkii su'aasha ugu horreeyay waxay ahayd weydiiyeen muxuu ahayday ehelkaagu ma leeyahay kaar dhalasho marka waxaan ku orinayaa aniga reerkaana weyn aabahayna miyibu degan yahay qaadan sideen ognahay dadka reer Soomaaliland kala barmaan kaarka qaadan walaaladiina anaaba weyn aabahayna walaalba lamu dhalan oo waa madi marka inankii meesha joogay ma jeclinaan magaciisa xuso laakiin inankii meesha joogay runtii waxa aad aan uga cadhooday oo aad ii damqay ayuu la hadlay kelmaddaas oo ah si sibiqa ama si dhuumasho ah ayaad ku qaadatay kaarka marka dood baan dhex martay inankaas inamada kale suuqa ay dhageysanayeen waxaan ku wiri ma beesha aan ka soo jeedo ayaan ahayn muwaadiniin ma beel baa lagu noqdaa muwaadin lagu noqdaa bal ii sharax ma wuxuu yiri ma qayb kamida reerka ka soo jeedo aan waxaan ahay nin shaqaasha reer oo qudub